waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno arday waxaynu ku soo jirnay cudurka loo yaqaan astaamaynta waa punctuation baa luqadda qalaad loo yaqaanaa waa qoraalka astaam luqad kastaana waxay leedahay astaamayn marka la eegayo sumadda afraad bay inoo maraysay adiga arkaya sumadda joogsiga ama dhibicda sumadda joogsiga ama dhibicda sumadda joogsigu waa sidan adiga arkaya arday caga soo eega qoys baa ku jira waa dhibicda ay qoys ku jirta ayaa loo yaqaan dhibic ama joogsi wax ay muujisaa dhamaadka weedha joogsigaas wuxuu shaqada koobaad uu qabtaa mashqadiisu waxay tahay waa maxay waxa uu muujiyaa dhamaadka weedha hadalkii socday ayaa halka ku go'ah weedha dambana markaa kadib ayaa ay bilaabantaa shaqadiisu wax kala ma ahay wuxuu muujinayaa dhamaadka weedha ayaa la dhigaa weedh cusub oo kale nuxur kala xambaarsan ba halka ka sii soconaysa ama ka bilaabaysa tusaale marka ayuunbuu geeli soo xarooday joogsi inan yar oo jilba jooga ayaa dabka ardaaga oo qiiqaya hurinaya waa maxay afuufayay inta uu kolba indhaha marmarto waa maxay marka indhuhu ka ganaan waxa weeye marmaranaya joogsi intaynu soconaba waa intaas weed way soo dhamaatay oo taa la isticmaalay dhibicdii ama joogsigii fg waa fiiro gaara inta badan dhibicda joogsiga waxaa loo isticmaalaa marka laga hadlaayo wax cusub ama ka duwan oo aan xiriir la lahayn weedhi hore fiiro gaarto wax kala ma aha ama afjiid wax kala ma aha waxay noqonaysaa inta badan dhibicda joogsiga waxaa loo isticmaalaa marka laga hadlaayo wax cusub ama wax ka duwan wixii hore aan loo isticmaali jirin nuxurka haddaan bartan ku soo dhawaano joogsigu waa calaamada yar waxa uu galaa dhamaadka weedha marka la eegayo weedhka loo cusubna ay bilaamayso sumadda shanaadna waa sumadda weydiinta waxa loo yaqaan calaamatu su'aal marka la eegayo sumadda weydiintu ama su'aashu waa sidan qowska yar oo adiga arkaya oo taalka ku qoran marka la eegayo waxay gashaa dhamaadka weedha marka la eegayo weydiinta waliba dhamaadka weedha weydiinta ayaa la dhigaa oo lagu suntaa maxaa loo jeedaa lagu calaamadiyaa weedh aan weydiin quman lahayna ma raacdo weydiin quman waa maxay waa su'aal toosa marka la eegayo waa weedh su'aal sax tusaale ma tagtaa reerkii baryahan dambe qof baa qof weydiinaya waxa uu leeyahay ma tagtaa reerkii baryahan dambe aniga arkaysaan ardayay in la dhigay marka qof ku nool magaalooyinka ku nool reerkoodina uu jiro baadiyaha mamiiga ayaa qof weydiinaya ma tagtaa reerkii baryahan dambe marka isagii baa laga doonayaa su'aasha inuu ka jawaabo waan tagaa ama baryahan maan tegin su'aasha labaadna eegno midabkee baa uu leeyahay qalinkaagu arday baa isku haysata amba cid baa isku haysata qalin su'aasha marka la isweydiino waxa weeye qalinka ku dacwoonaysa ama qalinka aad leedahay waa qalinkee marka la eegayo midabkee buu leeyahay marka qofku waxa la doonayaa dacwoonaya sheeganaya qalinka ama qalinka aniga leh inuu cadaysto oo midabka qalinkaygu waa sida iyo sidaas marka qof baa weydiinaya qof oo leh qalinka aad sheegayso ama qalinka aad xawey weydiinayso midabkee ku siiyo ma casaanka ku siiyo ma buluugan ku siiyo macalinka ku yiri qalinka ay dhig
su'aal buu ku weydiiyey waxa ka furan macallin qalinka casbaan ku siiyaa mise qalinka buluuga halkaan waxa inoogu dhamaaday waxa loo yaqaan sumadda weydiinta waa maxay marka su'aal lays weydiinayo su'aasha waxa weeye calaamadda lixaad baan eegnaa waa sumadda yaabka markaad eegto wax ka yaabiya arday dunidu waa yaab joog raxmara kuma ma geelaagu dhalay waxa cimrigaagu raadina geelada waa ku tusaa oo waxaad ka yaabto sumadda yaabku waa sidan calaamadda aniga geelina qowska waa calaamadaas aad arkaysa ama inoo muuqata dhamaadka weedha yaabku ku jiro ayaa la dhigaa weedha yaab ku jiro dhamaadkiisa la dhigaa yaabkaas oo noqon kara amar ila adiga lagu amro amar aan dawlad soo ka filan naxdin shay kaan xiya tiqtiqsi in lagu tiqtiqsado ma lagu jeesjeeso dhibcaha laalaanta loo yaqaana wanu tagay iyo wixii la halmaala marka leegayo tusaale warbax oo tag amar baa lagu siiyey warbax oo tag marka wadi yaabaysa waxa lagu maagay ama lagu haysto isweydiinaysa qofku amba qofka noo shaqeynaysa ama waalidka ciidan la joogta maxaad galabsatay aday isweydiinayaan waxba sameyn warbax oo tag alla qurux badanayay aad aragtay shay ka ficiyo quruxdiisa ama alla yaabto ku soo jiita qof muxuunaya alla qurux badanayay iyo wixii la hal maala hadaynu soo koobno si guud aanu sheegno saddex astaamood baynu maanta eegaynaa astaanta koowaad waa sumadda joogsiga ama dhibicda waa sumadda yar ee halka ku taala aynu eegno sumadda joogsiga ama dhibicdu waa sumadda yar marka la eegayo waxay gashaa u dhamaadka weedha marka la eegayo weedha marka dhamaatana weedh kale cusub baahee bilaamaysa adiga arkay halkay gashay marka eegayso calaamadda labaadna waa sumadda weydiinta waa calaamad su'aal oo adiga arkaya wax kale inoo ma tarto waxay muujisaa su'aasha marka la eegayo adiga arkay tusaalaha u dambeeya ma tagtaa reerka bariyahan dambe su'aal weeye calaamadda u dambaysa waa sumadda yaabka waa marka wax ka yaabiya ama waxa la yaabtaad aragto waa sumadda halka ku jirta waxay gashaa dhamaadka weedha wuxuu noqon karaa amar naxdin tiqtiqsi iyo wixii lamid ah tusaalena adiga arkaya warbax oo tag wax ka yaabiyay maxaa lagu galay ma lagu waxa weeye ama sidoo kale alla qurux badanayay inaha seen ku soo kobayna hadii ilaahay uu qadaro halkaas ay ku sii wadana aad ba u mahadsantiin ardayda sharafta iyo karaamada aan u hayno aad ba u mahadsan